السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله Soomaaliyeed dhammaantiin waan idin salaamayaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Haddaan salaad kasoo baxay dhaweyd waxaan idin leeyahay waqti kasta idin tahay ha idin wanaagsanaado, farxad iyo bashbash iyo barwaaqo igu noolaado. Waxaan rabaa inaan qiso wanaagsan oo dhaqankeeniya aan idinkaga waramo ama idinkaga sheekeeyo. intiina maqashayna waa maqashay, laakiin inta aan maqlin baa iska jirta moogta. intaana bilaabin fadlan ilaahay inuu khayr ku siiyo. xagga farta subscribe ka taabo, like-ta ku dar, share-ka haddaa awoodid, comment waxaa rabtid, laakiin subscribe-ta iyo like-ta hayga iloobin. ila soo fariiso haddaad igu cusub tahay, hana hilmaamin intaas. subscribe iyo like, comment waxaa awoodid. intiina hore ila joogtayna aada iyo aad baan kaga mahad celinayaa. ilaa intaas inaad heerkaas isoo gaarsiisaan oo maanta aan xoogaa aan ka fiicanahay sidii hore oon soo shaqayn garaynaya insha allah biidnillah. la-aantiin abaar insha allah. waxaan idin bilaabayaa qisadan. waad iska ogtahay horta reeraheena Soomaali, dadkeena Soomaaliyeed, calaashaan Soomaalideena ma wada nihin reer magaal, ma wada nihin. dadkeenu waxay u badan yihiin reer miyi, xoolo dhaqato. marka reer miyi leeyahay xoolo dhaqato, dadka xoolaha dhaqa oo aan ku noolnahay. wadankeenu xoolaha ayuu qani ku yahay, nooc kastay ahaadaan. la-aantoodna anaga magaalo waxba nooma sheegayso, bcause ayagaan ku tiirsanaa. marka reer wada family ah, calaashaan adeerayaalo wax saasa, ma fahamtay, ayaa waxay wada deganayeen miiga meesha xoolaha joogaan. marka familka waad ogtaho weligiis meel mooda joogo. dadku qaarna magaaladuu degaa, qaarna baadiyuhu degaa, ayagoo wada dhashay. qof walba hobbigiis iyo siduu noqdo waaye. marka reerihii familkii qeyb kamida magaaladii soo galeen, qeybna wadankii baadiyihii bay ku hareen iyo meeshii xoolaha joogeen. marka waxaa dhacday in waqtiyada iskuulka la xiro waxaa la geeyaa caruurta baadiyaha say usoo caana cabaan. caana lasoo siiyaa, dhaqanka xoolaha lasoo baraa, miraha oo geedaha iyo la siiyaa oo la tusiyaa meesha laga soo gurto. marka wiilal iyo gabdho isku jira waayo waxaa reerku geynayo baadiyaha, oo adeerayaalkood iyo ilmo adeerayaalkooda iyo familadoodii oo kalaa degan xagga ayagana. marka wiilashii mid kamida baadiyaha raggii joogay ayaa gabdhihii kamida isha dhag siistay, oo adeerayaal calaashaan dhaleen. oday saddexaad iyo miyaa ma aqaan, calaashaan adiga waa family. waxaa dhacday in wiilkii uu gabadhii ka helay. bas ilmihii iskoolka wixii markii waqtigii iskoolka lasoo gaaray waa ay noqdeen magaaladii ku noqdeen. bas markay meesha ku noqdeen, odagii wiilkaa dhalay baadiyaha degan iyo adeerayaal kale iyo soo baxeen. waxay yimaadeen magaaladii, gabadhii baa lasoo doontay. warsee wax idinka yihiin, gabadhani mataqaan baadiyo, magaalay ku dhalatay, waxaan ma yeelayso. marka waxaa fiican qof magaalada meesha xagga idinla degan in gabar looga raadiyo. may wiilka wuxuu dhahay hay heeto hay habaarto ilaa gabadhaas la isiiyo, may haddii kale anaaba isku dhamaynaya. waa waree isku yaacayaac calay xaal. gabadhii waa lagu daray ninkii. dhaqanka baadiyaha reeruhu markay familadu inta badan way wada yaalaan, way isla degan yihiin, ma kala dheerdheera. wax kasta shar iyo khayrba waa isku dhow yihiin. roob marku imaado waa isku jiin waaye, waa sida ma arkino dad wada degan magaalo yar waaye camal. waxaa dhacday markaa in maaragtay markii wiilkii gabadhii loo ogolaaday oo gabadhiina la yiri habaar ama duco, waa iska taqaano Soomaalideena, ay tiri waayahay oo baadiyihii la keenayo. marka familadaas oo dhan, adeeryaalkaas, walaalahaas, aabahaas, kulli wixii meeshaas joogo oo dhan
wiilkaas reerkiisa haddiisan ahayn reer xoolo badan oo buuran haysta, waxaa la sameeyaa xoolaha la isugu dardaraa, guri baa loo sameeyaa, xoolahaasna faraha laga saaraa, waxaa la dhahaa idinku ismaamula. markaas ninkaas waa nin oo micnaha horqaadaho reerka dhan asagaa u talinaya. markay gabadhii cabaar meesha joogtay, waxaa la dhahay haddaba marka maxaa la fadhidaa, waa inaad gabadhii isla markiiba xaamilay noqotay. waxaa la dhahay maxaa la fadhidaa adoo xaamilaa weliba, waa inaad xoolaha wax ka raacdaa, saan yeeshaa, xagga yeeshaa. adiga gabadhii meeshii way fahmi weysa. habeenu madow way iska soo dhaqaaqday. magaaladiina ma garanayso meelay ka jirto, meeshii u maleynaysay bas bay un afka saartay. subaxa waaga intuusa soo baryaynin oo ay indhaha kala qaaday is leedahay waxbaad arkaysa, baf waxay cararto. waxay is dhahday intaan lagu soo gaarin orodkeeday jabsatay. waana uurna way leedahay, saas uma ordi karto iyadoo big oo jahada iyagana maxay sameeyeen markay waayeen gabadhii, raadkeediia la raacay, raadkeediia lasoo subay dhag. iyadana say u biibaysay reero guuraayo oo magaaladii meeshii ay deganaayeen meel kaleeto u socda oo xoololey ah bay ayaga is arkeen. na xageed ka timid, xagee ku socotaa? magaalada. magaalo ma xaggan kaama jirto, magaalada halkaasay kaa jirtaa. meeshay ka timid bayba dib ugu soo noqonaysaa. marka ayagii oo raadinaya ka hor imaanaya soo maaha, marka meeshay soo aaday mehe dhanka kale inay aaday ahayd. markay saas waxaa la dhahay maxaa kaligaa kusoo bixiyay? maya magaaladan ku socdaa. wiilasha iyagoo reerka shakisan, gabadhi waxaa la dhahay magaalada xaggaasay kaa jirtaa. sidii bay kusoo noqotay, ay soo noqotay kuwii oo raadinaya ka hor yimid. maxaa la sameeyey? ninkii wuxuu ahaa nin fiican oo maasha allah. wuxuu dhahay gabadhan iyadoo xaamilaa fakatay oo meelaan jihadiiba ahayn aaday, tan intay waraaba meelaha ku cuni lahaa yaa adeerkay baa dhalay biyo adeer calaashaan qansax waaye. marka wuxuu dhahay intii dhib ka weyn imaan lahaa gabadhan waa celina. waa lasoo kaxeeyey gabadhii, waxaa la dhahay isdeji, magaaladii baan ku geyneynaa, mar danba ha carari, waraabaha ku cuni kara, bahalo kala jiri kara, dhibaato kala kugu imaan karta, adaa xanuunsan kara. sidiibuu kusoo kaxeeyey. wuxuu keenay gurigii waa aabihiis iyo aabaheed iyo reerkoodii. arrintii baa loo sheegay, wayba qaraacmeenba. gabadhii hooyadeed waxay dhahday gabadheeda adaa ka mas-uula, haddii maanta dhiman lahayd odagow waa aabihii gabadha siiyo oo ku qasbay, waxaas inaad samaysa ma ahayn. aakhirkii maxaa la sameeyey? gabadhii ninkii wayba jeclaatay, uurna way lahaatay. ma ogta ninka baadiyaha ma joogayay dhahday, ninka hala keena magaalada. magaaladii baa la keenay ninkii, meel yaroo dukaanaha loo furay, geel loo soo gaday, magaaladiiba ku abaaday isagoo meeshii degan. gabadhii meesheedii farxad iyo nolol ku haysatay. iskoolkii laakiin way ka hadhay, wax walba way ka hartay. laakiin waxay noqotay marwo oo gurigeeda degan oo ninkeediina meeshaas dukaankaas kala kacsan u leeyahay. kabacdina waxaa la dhahay dagaalkiibaa ku dhacay. dagaalkii hadduu ku dhacay war maa yaalo, kala haad iyo kala huf iyo ba iyo hoog baa dhacay. sidii bay ku kala carareen. laakiin ilaahay amarkiisa Ethiopia soo galeen. Ethiopia markay soo galeen haddana Kenya soo galeen. Kenya waxaa laga qaaday dadkii oo waxa weeye United Nation ku qaadeen. halkaasay degeen, halkaasay ku bulaaleen. halkaasa reerkii wiilka oo dhan iyo reerkii gabadha oo dhan intii dhimatay mehe intii nooleed oo dhan xoolihii adaa sheegaysid, wax abaaray disho, wax bahal cuno, wax la dhaco iyo waxay intii gataan ay kusoo jid maraan bay noqdeen. marka waxaan intaa uga socdaa gabdhaha yaan la qasbin. gabdhaha yaan la qasbin. haddii gabdhaha la qasbo wax kasta ka imaan karo. gabadhaas xaamilada hadda baadiyaha keligeeda iyadoona cid la socotaa jirin oo cararaysa. kuwo kaloo magaaladii ka yimid oo guuraya oo wax wata meel u socda
iska raacday u malaysay magaaladii. Haddayse kuwaas arki lahayna way sii socon lahayd, way sii dheeraan lahayd inkastoo la daba socday. Marka dadka waxaa la dhahay shimbirba shimbirkiisu la duulaa. Rabshada iyo riskiga ma fiican, qof walba qofkiisa hala siiyo. Labada qof oo israbto oo is ogol hala isu daayo. Odaygii habartu ninkii naagta ma dhex joogayaan. Labada qof ee israbta is jecel faraha la isaga qaadayo la dulmin. Marka khayr baan idin rajeynayaa. waad mahadsantihiin. aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa haddaad subscribe iyo like iyo comment aad ii saartaan. Bacbaari la fadhiisaan. waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.